الوطن قد وجب حقا حقا كل فرد مننا يلزمنا فاعتصم بثقة صدقا صدقا كل مخلص لنا يقصدنا يا أيها الصوماليون يا أيها dhegaystayaal 77 ayaa laga joogaa maalmihii uu baraarugu maansheeyey ee qaarkeed intuu hurdada ka heshay uu qaarkii kale gundhiyey 77 ayaa laga joogaa iyaga oo aad u dhalin yar maalmihii afarirdoodka xamar ay ku shiraayeen dukaankii calikaar maalmihii ay isku ballansanayeen 77 ayaa laga joogaa yaasiin xaaji cismaan iyo cabdulqaadir sakhaawadiin maalmihii ay inanba meel ka keenayeen ee iyaga oo dhuumanaya taalada umbeerta brimo ee bartamaha xamar ay hoosteeda ku tashanayeen waa maalmihii 13 barbaar ay isku dhaarsadeen meel ay joogto iyo shisheeyaha ka taliya ku ahaadaba Soomaalidii shanta loo qaybiyay inay gumaysiga ka dulqaadaan dabadeedna ay mideeyaan soo ma ahayn wayba ahayde 15 Maajo 1943 soo khamiista bari markii la gaaro 77 oo gow ah lagama joogi doono himiladaas weyn halgankii loo soo galay wixii dhibaato lagala soo kulmay wixii laga dheefay iyo marihii ka soo baxay sidii loo curdan dhariyay intaba maanta waxba kaga noqon maayo oo waa wax la og yahay haddii aan yeelana waa hadaltirana cilmiga aftahamada kuma amaana dadkii maalmahaas da'yarta ahaa maanta sawaayeelka ay sidii og yihiin leegadu halgankii ay gobonnimada u soo gashay mid fudud ma ahayn dhiig bay u daadiyeen xabsi bay u galeen dibindaabyo oo idil bay ku muteen laakiinse iyaga qudhoodu labada dhaban midkood markii laga dharbaaxo kan kala dhiiban mayne way ka diriri jireen halganka ayaa dhabka ahaa Soomaali oo kobanna way isku halaynayeenoo gadaalkooda ayay ku ogaayeen waxaa haddaba jiray halgamaa magaciisa aydun in badan iga maqasheen si aan hagar iyo kala har lahayn halgankaas ugu adeegay kolba meesha halista wuxuu ahaa nin u hormari jiray taas ka sokowna wuxuu ahaa gabyaa weynoo guubaabinta iyo dhiirigelinta taageerayaasha xisbiga aan marna ka daalin mindhagaratee waxaan u jeedaa Allaha u naxariistay Cali Xuseen Xirsi oo barnaamijkan aan xus uga dhigayo aniga oo ku soo qaadi doona gabaygiisii quruxda badnaa ee uu ku soo koobi jiray taariikhda maalmihii lama ilaawaanka ahaa uguna muuqa dheeraa halgankii uu isba qaybta ka ahaa maalinta koowaad ee Cali Xusaya waa 11 Janaayo 1948 waxaa xamar ku sugan elga 4 dowladood ka kooban oo ka kala socota xoogagii dagaalkii labaad ee dunida ku guulaystay waa Ingiriiso waa Sofiyeed oo waa Faransiiso waa Mareykan waxay u yimaadeen inay ka taliyaan kuwii laga adkaaday oo Talyaanigu ka mid ahaa ummadihii ay gumaysan jireen waxa laga yeelayo Talyaani wuxuu u xusul duubayaa in taliskiisii dalka dib loogu soo celiyo Ingiriis oo Djibouti mooyee dhulka Soomaalida markaas wada haystaana wuxuu rabaa in isaga loo daayo hase ahaatee Israel labada midkoodna dooni mayso markaas bay ergadii u dhiibtay dambaal dulucda xambaarsan gobonnimo buuxdana ay dalka ugu doonayso si uu haddaba codsigaasi meel mar ugu noqdo waxay leegadii abaabushay banaanbax ballaaran oo ay ugu talagashay ergadu inay cududeeda ku aragto gumaysiguse weligii dhuuna raac ma waayo Soomaali kale oo Talyaanigu riixayo ayaa banaanbixii leegada dhabqisay halkaasoo uu dagaal ba'ani ka dhacay waa goobtii Hanoolaato ee Talyaaniga badani uu gacanta wadaniyiinta ku baxay Cali Xuseen oo maanta goobjoog ahaa ayaa yiri itixaadka waagay ahayd laysu soo ururay dhulka oohintiisii markii urur ka soo yeeray maad cadowga ereydaan markuu inagu oogaanshay amlaydiyo bilaawaha markaan ooda kala boodnay ayaantii Hanoolaatadii kurubku aargoostay nin Ilaahay caasiyey raggii gowrac ku idleeyay albaabada kuwii ugu galee daalinka eryaayay ayuu tooy markuu yiri raggii ka asmici waayay afka labadii yeeryaye markuu awnaxyada muujay ma arxamina nimankii ka jaray godabtii aasayle awlaadii uu cunay u dhimay aramideedii iyo arbayaal dagaal u arrinsaday looma oonsado oo meeshay abbaaraan la eed ciilna ku abaadi
sida ari tadcaareed kufriga laga unuun gooyey waagaa ilmada daadatay iyo oohintii qubatay mid kalaa ka aataar xumayd ciil la soo aragi maalinta labaad ee cali xusuusanaya waxay ahayd dhagax tuur ha noolaata kadib talyaani iyo wixii ku jaal ahaa waa halkoodii leegana mawqifkeedii kama dhaqaaqin dabadeed waxaa la isla gartay si qadiyadda gobonnimada aan talyaanigu u xagildaacin in la tago go'aamada waaweyn halka lagu gaarayo oo ah tuulada lake success oo new york u dhow waagaasna xarunku meelgaara qaramada midoobay ay ku lahaayeen golihii dhexe oo xisbiga ayaa shiray kadibna waxay go'aamiyeen xoghayihiisii guud oo markaas allaha u naxariistay cabdulaahi ciise ahaa inuu halkaa u sadcaaro waxa ay ummaddu rabtana uu ka jeediyo hawl adag bay ahayd wuuse yeelay kharashkii inuu ku baxaayo la qiyaasay wuxuu noqday 100,000 oo shilin saa gobol iyo degmo kasta oo Soomaaliya joogto ayaa laga soo ururiyay anigan hadlaayana waxaa jeer gacantayda soo galay nuqul rasiid ay 10 shilin ku qorayd eelkarre Soomaalidii joogtana daboolista kharashkaas ay kaga qayb qaadatay isla qaybtan soo socota wuxuu gabyaagu ku xusayaa markii uu Cabdulaahi London gaaray ee dayuuradii uu Mareykanka u raaci lahaa si loo gafsiiyo shirqoolka loo maleegay kaasoo uu ka badbaaday kadib badmareenadii Soomaaliyeed ee magaaladaas joogay kolkay si walba ugu soo gurmadeen wuxuu sidoo kale cali xusayaa doodihii Cabdulaahi sidii looga yaabay iyo dalabkiisii gobonnimada dalalkii ku taageeray iyo kuwii ku diidanaa wuxuu yidhi 49 sanadu maray ahaanaysay Cabdulaahi uunada markuu berigii noo aaday waagii ergada loo dirtaan u alla tuugaynay arli aanu garanayn markuu ruuxa ku igbaaray istikhyaarka way ka cashaan ciida qooqan iyo England markuu ka degay bay xumaan uga asaaseen inaanu erigada raacin bay amar ku dhiibeen axad bay baxaysay oo khamiis ima yiraahdeen ninkaan ehel lahayn meel xun buu ku ag wareegay Soomaali aadaa jirtay oo kale dhisnayne goortay ogaadeen sirtii way arrimiyeen rag ilaalaha baa loo baxsho eegi loo diray ayaantay ka caysay fatuuradu ijaareen ogada markay kaga rideen axad ma saareen ayaantuu majliskii tagay ururkii dawladka intee buu ka yimid bay wax badan ku anfariireen goortuu araajida hordhigay inankii loo yeeriyay aasiyadu kama uur xumayn way ayidayeen dhurwaayada adoonsiga yaqaan way iljabiyeen qaybtan kalena wuxuu cali ku xusuusanayaa dhambaalkii Cabdulaahi uu qaramada midoobay xisbiga uga soo diri jiray ee uu ku sheegayay Talyaani oo dawlado kale taageero ka haysta inuu badabacsan yahay Soomaaliya inuu lihi u yeesho kadib markuu malaayiin dadkiisa ah uu ku beero sida cadaanka koonfurta Afrika dhambaalkaas isaga dadweynaha lagama qarine habeen axada ayaa naadigii leegada looga akhriyay dabadeedna wuxuu sababay dagaalkii isna dhiigu ku daatay ee dhagax tuur la baxay wadaniyiintii leegada iyo gumaysigana xamar ku dhex maray waa 1949 bilowga qaybtan ayuu isaga oo aan magacaabayn wuxuu gabyaagu farta inoogu fiiqayaa gumaysigu niman uu baryahaas Cabdulaahi ka daba diray kuna doodi jiray inaan Soomaalidu gobonnimo diyaar u ahayn isaga oo liqa karila raggii sidaas ahaa oo markay soo dhawaatay maamulkii daakhiliga ahaa laga qayb geliyay xisbigii ay la diriri jireenna ku dhex milmaaya ayuu yiri abuurkii xisbigan niman cuno ubixi daaqaya oo eega talinaayo oo ubucdu weynaatay oo cadow alaab siiyay oo iibsan baa jiray Cabdulaahi taa ku inkira yaa loo ijaarsaday annagu dawlad kuma aadnabay aqalki geeyeen xaajadu adkaatay kolkay meel xun ku aroortay taar oogada duulayuu aarku soo diray waxa laga akhriyay hadaladii oo inta lahaay waqtiga idaaradu shir bay u ololeeyeen ummadoo dhan baa qaylisoo leysla oogsaday ingiriisku nooma ogoleen ururka maantiye oblikaanu ugu soo baxnay amarkii noo diiday albaabada galaayo wuxuu oru dhaqaaqaaba goortaan asmixi weynay buu doontay armiga askartii u joogtiyo la yimi aamikaarada kufrigu nagu afuuf saanadii oo tabilingaaye isna eediyey dhagax tuur codkuu soo abaabulay
cali xuseen allah u naxariistay wuxuu gabaygan tiriyey 12 Oktoobar 1954 markii koonfurta loogu dhawaaqay ismaamulkii gudaha ee daakhiliga loo yaqaan markii ugu horeysay ee calan Soomaaliyeed uu hawada ka babado isaga oo haddaba taas ku dhaadanaya guud ahaan SYL libta siinaya ayuu gabaygii ku soo gabagabeeyay iyagiyo intii wehelisoy la ijtihaadaysay beer bay abuureen dhul aad ku istareexdaan kor u eeg buluugley rag baa oogada suray لغوما هيلين عالنكا عادو بانكا ديني عالنكا ديك بان أسوقب نيشومالا وديمتي عالنكا دلينيرو يوغو عالنكا جوجيو كندل كلكينبا كان دغرت ودبعا على لها تبيعيه عالنكا كان دحدينا جوجيو كندل كلكينبا كان دغرت ودبعا على لها تبيعيه عالنكا دلينيرو يوغو عالنكا هيلين عالنكا عادو بانكا ديني عالنكا ديك بان أسوقب نيشومالا وديمتي